maalmo ka hor waxaan la kulmay waxay tahay arrin aad iyo aad u xanuun badan taabatay qalbigayga ka fakarsiisay maskaxdayda iina diiday habeeno badan in aan seexdo arrintaasoo ah waxay soo wacay waxay tahay qof degan dhulkii hooyo wuxuuna ii sheegay arrin aad iyo aad u xanuun badan arrintaasoo ah Abubakarow waxaan ku sugannahay waxay tahay xaalad adag qof noo maqan ma jirto nolol maalmeedkeena nolosheena ayaa nagu adag haddana waxaa soo dhow waxay tahay bil barakaysan ee Ramadaan afurkii iyo saxuurkii ayaa dhib nagu ah ee Abubakarow soonka waajib miyay nagu tahay maxaan samaynaa arrintaas marka uu ii tilmaamay aad iyo aad baan ugu murugooday habeenkaas waan seexan waayay maxaad ugu jawaabi lahayd qof ku nool wadankii hooyo muslim ah raba ilaahay dartiisa inuu hadana heli karin afur iyo saxuur marka aan aragnay xanuunkaas ayaa aniga iyo Umar waxaan go'aansanay waxay tahay buug aan qoraynay aan ku mashquulsanayn sanad oo dhan habeen iyo maalin lacagta ka soo baxda buugaas qayb ka mid ah oo dhan in aan ku afursiino walaalahayna Soomaaliyeed aanan heli karin afurka iyo sidoo kale saxuurka buuga midna aniga ayaa qoray magaciisuna waa Daawada Murugada midna Umar ayaa qoray magaciisuna waa Jacayl aan dhamaad lahayn hadaba aniga iyo adigaba hadafkeenu waa in aysan dhicin qof Soomaali ah oo muslim ah raba inuu soomo in uusan heli karin afur iyo saxuur aniga ayga daan ala kulmiye ana gudoomiyaha ururka samafalka Soomaaliyeed alfatarasta walaalaha Soomaaliyeed waxaan halkan ugu baaqayaa labadan buug cusub ay soo saareen walaalahayna qaaliga Sheekh Umar Faaruq iyo Sheekh Abubakar insha Allah ta'ala buugtaas waxa lagu afrin doonaa dadkii dhulkii hooyo ku dhibaataysan shaqadaasna waxaan qaban doonaa ururka samafalka Soomaaliyeed alfatarasta maadaama ay tahay xilli soon markii shaqadaas waxaan jeclaan lahayn in aan anagu u qaban ummadda Soomaaliyeed insha Allah ta'ala noqo shakhsi taageero buugkaas ama gado si loogu afriyo walaalka dhibaataysan dhulkii hooyo jooga buuga adlatid waxay faa'iido u noqon doontaa waxay tahay nafsadaada waxaad ka faa'iidi doontaa waxay cilmi aqoon sidoo kalena waxaad ku heli doontaa ajarka hooyo iyo aaba Soomaaliyeed aan heli karin waxay ku afuraan insha Allah waxaan balan inaan sanadkan garab aan noqono in dadka Soomaaliyeed aan ku afursiino buugaas insha Allah ta'ala